waa islaam markoowaad mar labaadka waxaan rabaa inaan laba arrimood isdul taago oo aan isleeyahay waxay u baahan yihiin in wax un laga yiraahdo. waxaan ku jirnaa xaalad si u kala guur ah, dalkuna uu wajahayo carqalado siyaasadeed. waxaan markooda ilaahay ka baryaynaa in uu dhib walba iyo carqalad walba ina seejiyo oo ina hareer mariyo. mar labaadana waxaan rabaa inaan labada arrimood isdul taago. midda koowaad waxa weeye waxaa xal u helid u baahan wax la yiraahdo talax tagga siyaasiga reer Puntland oo aan u malaynayo in ay xad ka baxsan tahay. siyaasiga reer Puntland wuxuu ku suntan yahay badankood in maslaxadda ah haddii uusan isagu kursi helayn oo uusan isagu dheef helayn siyaasadeed, kursi uusan helayn, in ay kala weyn tahay wax walba kursigiisu inuu kala weyn yahay oo uu rabo inuu wax walba yani ummad tanaasul ma jiro, waa aad u talax tagaya, daraf buu istaagaya. marka waxaana qurux badnaan lahayd in qofku wax badan oo kaleeto oo u eexinaya ay jiraan, dal ay jiro, dad uu jiro, ummad ay jirto, midnimo jirto, wax badan oo eexinaya inay jiraan. laakiin talax tagga tirada badan waxaan u baahanahay inuu xal yeesho, inuu xakamo yeesho. talax tagga gaarsiisan qofku inuu ammaanka khalkhal geliyo haddii uusan isagu helayn, waxaan u baahanahay inuu ka fiirsi iyo xal yeesho. midda labaad waxa weeye dadku waxay daris la noqdeen waaye aragnimo xun oo aan Puntland looga baran. 20 jirka reer Puntland ee nabadda ku barbaaray, ee quruxda iyo barwaaqada ku barbaaray, ee hanka dimuqraadiyadeed lahaa, ee nolosha u qurux badnayd oo himilooyinka fiican lahaa, waxaan shalay u joognay isaga oo waaye aragnimo xun dhaxlaya, waxaan u joognay isagoo qaxaya, waxaan u joognay isaga oo wax uusan noloshiisa horena u arag dibna u arkayn aynaan la rabin isagoo waaye arag u ah. ma rabno waaye aragnimada inay soo noqoto, ma rabno in dhacdooyinkii foosha xuma oo taariikhda gale ay dib u soo noqdaan. si labada arrimoodba looga badbaado waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay hal shay. halka shay u baahan tahay waxa weeye in siyaasiga reer Puntland madaxnimo doonka ahi uu ku daro doonistiisa tanaasul inuu ku daro, uu ku daro doonistiisa inay jiraan wax badan oo uu eexinayo oo dad ah, oo dal ah, oo rabitaan umadeed ah, oo la jecel ah. waa mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa inay jiraan wax badan oo ummadda mideeya iyo wax yar oo ay ku kala tagsan yihiin. Assalaamu calaykum.